أما بعد مدحوينها دولة goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada saraakiisha ciidamada iyo marti sharafta kale ee nala joogta bahda saxaafadda dhamaantiin waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudan madaxweyne sharaf waxaa inoo ah inaan kugu soo dhaweyno magaalada Baydhabo adigii wafdigaagii oo muddo maalmaha ka maqnaa magaalada safaro shaqo iyo cibaado intaba isugu jira ku maqnaa soo dhawaada mar labaad waan dareensanahay safar dheer inaad soo gasheen daal badan oo idinka muuqdo marka insha Allah wixii warbixin guud ah oo dhanka shaqada ku saabsan insha Allah markaad nasataan baan kala qaadan doonaa marka hadaladeeda waxaan ku koobay oo kaliya anoo ku hadlay dhammaan mas'uuliyiinta hortaada fadhida maanta kugu soo dhaweysay garoonka anoo magacooda ku hadlayo waxaan ku leeyahay madaxweyne soo dhawaado bismillaahi raxmaani raxiim gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaanada federaalka siyaasiyiinta saraakiisha amniga iyo mas-uuliyiinta kale oo ganacsatada leh oo inta nagu soo dhaweysay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan aadi jirnay safar shaqo kan laakiin wuxuu ahaa safar cibaado cimradii baan u baxnay cibaadaan aadnay ilaahay waana nabadgeeyey waana na soo nabad celiyey dalka iyo dadka iyo dowladda intaba waa u soo duceynay madaxda dowladda oo mas-uuliyiinta oo xilalka haayo oo koonfur galbeed noocyadooda kala duwan oo dhanna waa u soo duceynay inuu ilaahay mas-uuliyadda iyo xilka ay hayaan uu ilaahay ku asturo uusan ku ceebeynin oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale oo dhan oo reer koonfur galbeed iyo saraakiisha leh kulligiin waa idiin soo duceynay inuu ilaahay mas-uuliyadda aad dalkan iyo dadkaana u haysaan uu ilaahay inku hagaajiyo sida xaqa ah oo dalka iyo dadka u roon ilaahay ha naga aqbalo runtii waxaan inkaga mahad celinayaa muddadii aan maqnayn shaqadii fiicneyd oo aada qabateen taariikhda magaalada Baydhabo waxay noqotay iyo deegaanada koonfur galbeed oo dhan bishii Ramadaan nimankii shar wadayaalka ahaa ilaahay waa ka badbaadiyey ilaahay baa mahaddaas iskale laakiin mas-uuliyiintii shaqada gacanta ku hayay baa iskale gaar ahaan waxaan uga mahad celinaynaa ciidamada qalabka sido iyo taliyaalka ciidamada oo ka shaqeeyey in dadka reer koonfur galbeed ay nabad ku soomaan nabadna ku afuraan nabadna ku iidaan ilaahay mahaddiis waaye waxaan uga mahad celinaynaa intii ka shaqaysay oo dhan oo mas-uuliyiinta ahayd waana la soconnay waana ku mahadsantihiin bishii Ramadaan ilaahay baa mahaddiisay ahayd in magaalada Baydhabo aysan waxbana dhiba ka dhicin runtii waajibaad fiican oo la gutay bay ahayd waxaa jiro dad ayaga naftirkooda aanan sheegin oon u soo duceeyey oo iimaan laawayaal ahoo masiibada ummaddan habeen iyo maalin ka shaqaynayo wax social media la yidhaaha ku mashquulsan oo been sheegayo oo magaaladaas aa aragteen oo nabadda ah oo aan dhibka ka jirin oo wax is haysta aan lahayn oo dowladnimada ka shaqaynaysa oo wanaagga ka shaqaynaysa habeen iyo maalin ayagiina dhex joogo oo nabad ku qabo oo dhibaato ka sheegayo oo social media gelinaya waa la gubtay iyo waa la damayda ku haya ayaga naftirkooda waa iloobay waa u soo duceeyey inuu ilaahay soo hanuuniyo iimaanka alla ku sugo oo masiibadan ay sheegayaan dalkan ma taalle oo ilaahay uu iimaankooda u sugo ayagana waa u soo duceynay magaalada waxaa ku soo bilaabatay dil xaq darro ah
nabadgelyadii waa laga shaqeeyey laakiin waxaa muuqato in dilkii uu micno la-aan noqday. waa damiir xumo, waa dadnimo xumo, wax diinta islaamka ay ogoshahay ma aha, wax dowladdaannada ay ogoshahayna ma aha in nin muwaadin ahoo soomaaliyeed oo shaqaysanayo oo shaqadiisa haysto ninkii askariga ahaa oo la rabay inuu xaquuqdiisa ilaaliyo inuu dilo. waxaan aqbalayna ma aha, mana ogolaanayno. ninkii nin dilana waa la dilayaa, waa la tooganayaa asagana. mana ka ogolaanayno nin dambe noocuu raba ha ahaado inuu nin dilo. waxa loo taagan yahay oo ciidamada qalabka sida u taagan yihiin waxaa weeye inay shacabkaas badbaadiyaan oo ay ka badbaadiyaan dadka cadowga, laakiin inay ayaga ku soo noqdaan oo ay dilaan maaha. intii dhimatay allaha u naxariisto oo xaqdarrada lagu dilay, gacanta ka xaqdaran ay dishay. maalinta aan tagaayey nin aan aada uga xumaaday oo runtii wax loo dulqaadan kara aan ahayn, darawal ahaa oo baabuur waday yaa waxaa loo dilay 5,000 keen oo weliba inuu sooman yahay aan aaminsanahay, inuu nin soomanaa oo shaqaysanayo waajibkiisa gudanaya yaa nin askari oo biliisa wuxuu u dilay keen lacagta loo dilaayo hataa waa wax $1 ka yar ninka. marka dadkaas ayaga ah inay joogaan oy bulshada ku dhex jiraan oy ku sii dhex noolaadaan sax ma ahan. allah u naxariisto. intii aan soo soconnayna waa naloo sheegay ninkii kale oo asagana ganacsatada ahaa oo sida xaqdarrada lagu dilay. runtii wax loo dulqaadan kara ma aha, mana aqbalayno in ilaa iyo heerkaas ay gaarto nabadgelyadaannada. haddii nabadgelyadii guud la sugay, midda gaarka ahaydna in la sugo waayo. inaanan qof bini aadan ah noocuu rababa ha ahaado, cidduu raba ha ahaado, oo dadka shacabka ahoo deegaanadan ku nool in xaqdarro lagu dilo oo la dilo ma aqbalayno. ciidamada amniga sida ugu dhaqsaha badan iyo hay-adaha amniga waxaan u geli doonaa shir degdega, waxaana laga gaari doonaa go-aan adag hadduu ilaahay yidhaaho. dadka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay dowladnimada iyo amniga iyo sharafta iyo karaamada adinkay idin anfacaysaa. nin been idiin sheegaayo oo dulmiilowa oo meeluu tagayo aan lahayn wax micnuhu inku soo kordhinayo ma jirto. nabaddiinna ilaashada, dowladnimadiinna ilaashada, adinkaa iskale, adinkaa xaq u leh. waxaad xaq u leedihiin inaad nabad ku seexataan oo nabad ku soo kacdaan, waxbarasho heshaan. inta ummadda soomaaliyeed kale oo dhan ay haysato inaad heshaan baa xaq u leedihiin. annagana ilaahay hortiisa waa u dhaarannay inaan kala shaqayno oo aan ka shaqayno intii Soomaali ay qabto iyo ka fiicanba inaad heshaan. marka ma aqbalayno, gacan adagaana ku qabanaynaa intaas caqabad ku ah. nin allaale iyo ninka dowladnimadan iyo maxaan ummaddan aan u hayno adeega ah ka hor yimaadana wuxuu noola mid yahay, wuxuu rabaa ha ahaado, kuwa duurka ku jiray asagaba isuu kaana mid waa. aada iyo aada u mahadsantihiin. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan inkaga mahad celinayaa soo dhoweyntii qiimaha badnayd, ayadoo waqti kulayl badan ay tahay aadna soo dhoweyseen. aada ugu mahadsantihiin. insha allahu waxaa noo bilaabanayso fasaxyadii baa iska dhammaaday, iidii iyo soonkii iyo waa iswarsan doonaa. wixii shaqo ah si guud iyo si gaar ahaaneed iyo si gooni ahba waa isu warsan doonaa. kulligiin aada u mahadsantihiin.